Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali Freedom ku soo dhawaada warbixin ku saabsan Turkiga iyo qaaradda Afrika. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wuxuu dhawaan u bixi doonaa socdaal diblomaasiyadeed oo 4 maalmood ah oo ku tagay 3 dal oo kamid ah wadamada qaaradda Afrika. Erdogan wuxuu hore socdaal rasmi ah ku booqday 28 dal oo Afrikaan ah oo kala ah Masar, Ethiopia, Koonfur Afrika, Tunisia, Morocco, Sudan, Algeria, Libya, Somalia, Gabon, Niger, Senegal, Equatorial Guinea, Djibouti, Ivory Coast, Kenya, Uganda, Guinea, Nigeria, Ghana, Tanzania, Mozambique, Madagascar, Chad, Mauritania, Mali, Zambia iyo Gambia. Haddana wuxuu booqanayaa sida ka muuqata Angola, Nigeria iyo Togo. Safarkan ayaa mid muhiim ah maadaama Turkigu magaalada Istanbul ku qabanayo 2 munaasabadood oo muhiim ah oo kala shir madaxeedka saddexaad ee dhaqaalaha iyo ganacsiga ee Turkiga iyo Afrika oo dhacaya 21 bisha Oktoobar iyo shirweynaha saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo Afrika oo isagana la xaqiijiyay inuu dhacayo 17 bisha December ee isla sanadkan 2021. siyaasadda Turkiga ee Afrika oo ka kooban dhinacyada siyaasadda, dhinacyada dhaqanka, bini'aadanimada iyo dhaqaalaha waxay qayb ka tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ee dhinacyo badan leh. Turkiga wuxuu hiigsanayaa inuu gacan ka geysto horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee qaaradda. Sidoo kale wuxuu horumarinayaa xiriirka laba geesoodka ee Afrika iyo Turkiga ee ku saleysan iskaashi siman oo leh faa'iidooyin laba dhinac. ganacsiga Turkiga iyo Afrika dhamaadkii 2003 wuxuu ahaa qiyaastii 5.4 bilyan, sanadkii 2020kana wuxuu gaaray 25.3 bilyan inkasta oo uu jiray faafitaanka caabuqa dilaaga ah ee COVID-19. daawade adigu maxay kula tahay siyaasad ahaan markaad fiiriso Turkiga damciisa Afrika in xiriirka iyo sar u kaca hadda saaxiibtinimada wadamada qaar ay wax badan ku soo kordhin karto saaxada qaaradda Afrika? dhab ahaanna Ankara diyaar ma u tahay in la timaado weji ka bedelan kan reer galbeedka ee Afrika ku wajahan? Somali Freedom ayaad kala socoteen, waad ku mahadsantihiin daawashadeena. Nabadgelyo dhammaantiinba.